ciidamada maamulka Galmudug oo cududooda ku soo bandhigay magaalada Gaalkacyo ayaa shaaca ka qaaday inay ku filan yihiin sugidda amniga madaxweynaha jamhuuriyadda oo lagu wado saacadaha soo aadan halkaas inuu gaaro. Talaabadan ayaa ku soo beegantay saacado kadib markii hadal hanjabaad uu ka soo yeeray hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Deni kaas oo la xiriiray in Xasan Sheekh Gaalkacyo uusan imaan karin koonfurteeda isla markaana Puntland talaabo ciidan ay qaadayso. wasiirka difaaca dalka Axmed Macalin Fiqi ninka loo wado hogaaminta Galmudug Liibaan Axmed Xasan Liibaan Shuluq iyo xubno kale ayaa durbadiiba diyaariyay ciidamo isugu jira kuwa xoogga dalka iyo ciidanka maamulka Galmudug ee Gaalkacyo fadhigoodu yahay kuwa oo heegan buuxa la geliyay isla markaana la sheegay inay u diyaar garoobayaan adkeynta amniga madaxweynaha qaranka ee halkaasi gaaraya. sida laga soo xigtay ila warida ku dhow madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxa saraakiisha ku wargeliyay in socdaalkiisa uusan marnaba baajin doonin isla markaana Gaalkacyo uu gaari doono. macluumaadka barqanimadii maanta la helay waxay daha ka rogayaan in Siciid Deni cilaaqaad uu la sameeyay simada dhaqanka ka soo jeeda dhinaca Galmudug ee gobolkaasi Mudug isla markaana uu u sheegay inuu ogol yahay imaatinka madaxweyne Xasan oo go'aankiisii hore iyo hadalkii ka soo yeeraba uu raaligelin ka bixinayo laakiin kaliya uu ka dalbaday in madaxweynaha aysan soo raacin siyaasiyiin dhanka Puntland ka soo jeeda kuwaas oo haatan baan qayb ka hayn safarka madaxweynuhu deegaanada Galmudug ku marayo. Siciid Deni ayaa maalmihii la soo dhaafay dandaansi xooggan ku hayay deegaanada maamulka Galmudug inkasta oo dawlad goboleedku marxalad isbedel uu ku guda jiro. Axmed Qorqorna awoodiisii hoos loo dhigay oo xafiiska inuu banneeyo uu u diyaar garoobayo haddana waxaa jira xubno ka soo jeeda koonfurta Gaalkacyo kuwaas oo hanjabaado iyo fariimaha wada mariyay saacadihii u dambeysay waxayna u badiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda isla markaana sheegay in madaxweyne Xasan Gaalkacyo iyagoo ay keenayaan kuna difaaci doonaan. magaaladan ayaa ku dhawaad muddo 8 sano nabad lagu naaloonaya iyadoo soo martay dagaalo qaraar oo lagu hoobtay waxaana nabadaasi wadajir uga shaqeeyay labada maamul inkastoo haatan saansaano coladeed la dareemay. safarka madaxweyne Xasan waxaa loo arkaa mid daaran arrimo la xiriira deegaanada maamulka Galmudug laakiin xukuumadda Deni ayaa isku dayaysa in koonfurta Gaalkacyo oo Galmudug ay ka arrimiso ay ka hor istaagto Xasan Sheekh inuu soo gaaro taas oo aan la ogeyn sida ay u suurtageli karayso. dadka qaar oo arrimaha amniga ka faalooda waxay qabaan in qallaasan magaalada loo horseedi karo haddii hanjabaadda laga dhabeeyo laakiin waxay soo joodinayaan ilaalinta amniga oo haddii faraha uu ka baxo ay adkaan karayso in dib mar kale loo hanto. khilaafka u dhexeeya maamulka Puntland iyo dawladda dhexe ayaa meel sare gaaray kaas oo mar walba saansaantiisa laga dareemayo dhinac walba. Siciid Deni iyo dawlad goboleedkiisuna waxay u muuqanayaan in maamulka dariskooda ee Galmudug ay faragelinayaan arrimahooda iyagoo ka duulaya khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya.